xarigaygu sharci darro ahaa 3 biloodna waxaan aaminsanahay inaan sharci darro ku xidhnaa maanta waxaan helay cadaalad xor baan ahay aqalkayga magaalada Hargeysa idin kala hadlaya laakiin 3 bilood haday qaadatay waxaan leeyahay cadaalada oo raagtaa waa cadaalad darro haddana in lagugu eedeeyo waxaanad ahayn ayaa dambi kale iyo dulmi kale iyadoo ah shaar ahaan aniga taariikhdayda meelna kagama qorno kumana xusna qaran dumisnimo iyo inaan Soomaaliland iyo jiritaankeeda marnaba aan meelna kaga hor imid ma ahana hadii qofku uu dhibsado hab fikirkaaga iyo habkaad adigu wax u qortid oo dastuurka iyo xorriyatul qowlka uu ku baneeyay adigoo muwaadin ah inaad doonisto qofeed ama qof rabitaankiisa aad ku noqonaysid qaran dumis dalkayga Soomaaliland waan jecelahay si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa xildhibaan Siciid Cabdisamed Siciid Curay geesi qaran iyo xildhibaan Axmed Khaliif aan anigu aqaan Axmed Libaax waxaan leeyahay waxaad tihiin mas'uuliyiin qaran runtii dadkii idin soo doortayna way idin mahadiyeen shacabkii idin codeeyay fartoodii may eedin bahda saxaafadda markale ayaan u mahadcelinayaa Galayd Media si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa marka ugu horeysa mahadle suurta geliyay maanta inaga oo xoreynayno halkan mar kale aan ku wada hadalno mar labaadka waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa hooyaday macaan hooyo Hinde Maxamed Cawaale Cusmaan waxaan leeyahay hooyo qaali inantaadiyo ku jecel baan ahay wad mahadsantahay marka kale waxaan iyagana si weyn ugu mahadcelinayaa dawladeeda Ingiriiska sidii ay garab taagneed muddadii ay xorriyadeedu iga maqnayd xariga xaq darrada ah dadaalkii ay ka geysteen waxaan leeyahay wad mahadsantihiin sidii ay uga warqabeen ka badqabka caafimaadkayga iyo raadinta xorriyadeydaba wufudiga kala imanaysay mas'uuliyiintii ay ka soo kala dirayeen wadanka Itoobiya iyo Soomaaliyaba wad mahadsantihiin iyo xafiiskooda Hargeysaba si weyn waxaan ugu mahadcelinayaa bahda saxaafadda intii nayla joogta Galayd Media iyo inta inaga maqanba meel walba joogtaanba intii aan xidhnaa waxaad ahaydeen garabkayga waxaad i tusteen inaan idin ahaa mid idin ka mid ah waxaad ii ahaydeen cod intii aanan cod ka lahayn waad mahadsantihiin iskarab taageeni waxaan idin leeyahay dadka way iska xignaa xildhibaanada si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa xildhibaan Siciid Cabdisamed Siciid Curay geesi qaran iyo xildhibaan Axmed Khaliif aan anigu aqaan Axmed Libaax waxaan idin leeyahay sida aad dulmiga u diideen sidaad u diideen duleynta dulmika dhiidigaad samayseen sidaad sukay garab taagteen sidaad xaqa ugu hiiliseen sidaad u diideen inuu tacadi cidina cid ay u xidhnaato cidina cid ay tacadi ay u geysato gudaha Soomaaliland waa ku mahadsantihiin waxaan leeyahay waxaad tihiin mas'uuliyiin qaran runtii dadkii idin soo doortayna way idin mahadiyeen shacabkii idin codeeyay fartoodii may eedin labada xildhibaan si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa dhammaanba xildhibaanada golaha wakiilada ayaan u mahadcelinayaa idinma soo koobi karo idinkoo dhammaystiran waxaad gudateen waajib qaran xildhibaan Professor Jamaal Cali Aadan Jaah xildhibaan garyaqaan Mustafa Khayreeye xildhibaan Maxamed Abiib xildhibaan Barkhad Batuun xildhibaan Meecaad xildhibaan Cabdirashiid xildhibaan Caana Boode xildhibaan Maxamed Xasan Siciid idinma soo koobi karo xildhibaan Rambo dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin dadaalkii dheeraad gasheen waxaan idinka filayaa dadaalkaas inaanu ku ekaanin inta dulman inta khalad u xiran sharciga qalooca intaba idinka u xildhibaan idinka u baarlamaan idinka u sharci dejin idinka hay'adda qaranka ugu mudnayd ah waxaan rajaynayaa wax kasta oo qalooca ama ka khaldan dalkeena inaad idinku wax ka qabataan war intadii qabateen in idinka badan baan ayaan idinka baahanahay magan idinka nahay cid u xidhnaan karta iyo cid sharci ku xadgudbi karta iyo sharci qalloocnaan kara iyo qof dambi loo sameyn karo iyo cid loo doonista qofeed loogu maleegi karo dambi iyo dulmi gudaha Soomaaliland ka dhacda suurtagal maaha markay dhacdana idinka ayaan mas'uuliyadeeda idinka rabnaa ta ugu weyna leh inaad sharciga lagu soo noqdo sharciga khaldan qabataan ka khaldan wax ka bedeshaan xindaabna aad u noqotaan si weyn baan ugu mahadcelinayaa garyaqaanadeedii runtii nafhurka dadaalka nafhurka ah ii sameeyay garyaqaanka weyn garyaqaan Guulaad Dafaac garyaqaan Mubaarak Fallaag iyo garyaqaan Caraale haliyeeyo qaran baa haydeen taariikhda idin xusi doonta kiis adag baad ka shaqeynaysan oo culays fara badan ku gadaaman yahay oo dhinacyo badan runtii culayskiisa kale dadaalka faraha badan aad samayseen waan idinka mahadcelinayaa laantiina wax badan sida u dhaceen umay dhaceen si weyn ayaan ugu mahadcelinayaa cid kasta oo garab siisay muddadii aan xariga sharci darrada ku xidhnaa iskay garab taagtay مسؤولينta axsaabta mucaaradka baan u mahadcelinayaa xisbiga wadani xisbiga ucid iyo ururweynaha ka dhammaanba mas'uuliyiintooda iyo taageerayaashooda meel kasta ay kala joogaan